waxaa maanta oo taariikhdu tahay 18 January 2020 halkan noogu yeeray gudoomiyaha iyo gudoonka cusub ee Galmudug baarlamaanka Galmudug waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah waxa kamid ahaa walaaca ka qabno process socda ee doorashooyinka Galmudug sida la socotaan waxaa la gudbiyay cabasho qoraal ah waxaan la wadaagnay cabashadaas iyadoo fikirhaan oraa ah gudoonka waxaan ka hadalnay wixii aan ku aragnay intaan joognay arrimaha doorashooyinka oo koow ka yihiin xildhibaanada cusub ee Galmudug inaan fursad noo siin aan la kulanno aan wali si buuxda aan uga kulan ama arag sidoo kale waxaan ka codsanay in la siiyo waqti nagu filan waqtigaas oo ay noqon karto waqti aan fikirkeena aan ka gadi karno xildhibaanada sida ogtihiin doorashadii gudoonka xilligii la dhaariyay xildhibaanada iyo xilligii doorashadu dhacday waxay ahayd muddo aan ku filnaan karin qof murashax ah inuu fikirkiisa gado in badan oo xildhibaanada ah isma garanayaan ayaga laftooda annagana garan mayno annagoo taa ka duulayna qaladaadkii dhacay ayaan waxaan gudoonka kala hadalnay doorashada soo socota ee madaxweynaha Galmudug inuu noqdo mid xor iyo xalaal ah inuu noqdo mid loo siman yahay in la siiyo waqtigii asagoo qoraalana waa la qoray waa la gudbiyay haddana waa kala hadalnay gudoonka sidoo kale gudoonku wuxuu ballan qaaday inuu la kulmi doono murashaxiinta inta kale waa naga aqbaleen waxaan ku ballan in dib isugu soo noqono waxa ayadana jirta inaan ka hadalna arrimaha Galmudug dhameystiran taasoo macnaheedu yahay in madaxweyne xaaf oo hadda fadhiya magaalada Gaalkacyo arrintiisana waa isku soo qaadnay waxaan isku soo qaadnay sidoo kale arrimo qaladaad ah oo farsamooyinka xaggooda la xiriira oo doorashooyin ku saabsan oo cabasho ka timid arrimahaas oo dhan baa isku soo qaadnay waana isku afgaranay insha Allah waxaan ka warsugaynaa gudoonka inaan mar kale kulanno sidaas ayaa maanta noogu qabsantay idinkana waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq